بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوّاد الدعوة البرنامج كأني كبره موقع الأرجع برشادة أفك الصومالية يحسابته ما دوين كان قلعة الصومالية يحسابته ما ده الصومالية وحين بري دونا معلن أما بري إبراهيم جامع فرح حلقة ما ده حسابته ونودي دونا أما نبري دونا معلن إبراهيم علمي حسن هذا بينت برنامج كأنه صعده وحد يحتاج نون نقول دونا برنامج أي كمديهين riwaayado iyo wacyigelin raxiim ku soo dhawaada arday barnaamijkeeni muuqaal arag ee akhriska iyo qoraalka farta Soomaaliga waxa idin dhigi doona maadada Soomaaliga anigoo Ibrahim Jaamac Faarax kuna magac dheer dhama waxaynu ardayay baran doonaa xarfaha af Soomaaliga xarfahaasi laba qayb baynu u qaybin doonaa qaybta koowaad waxa la yiraahdaa shibanayaal ereyga shib ayay u taagan yihiin waa qolo aan aamusin markaynu shib eegno way aamusan yihiin waxaynu raaci doonaa shaqalka oo isagu ka hadlin doona xaraf kasta oo shibana ah ardayo waxaad maanka ku haysaa in uu ku lamaan yahay shaqal aan ka muuqan qoraalka waa xaraf kasta oo shibana ah oo kaliya taagan mar waxaynu ka bilaabi doonaa casharkeena koowaad waa Soomaali cutubka koowaad akhriska iyo qorista xarfaha way bal casharkeena koowaad aynu eegno cutubka koowaad xarfaha shibanayaasha waxaynu baran doonaa saddexdan xaraf oo saddexda inoogu horeeya ah koow waa ba ka ku xiga waa ta iyo ja way bal waxaynu arday eegi doonaa xarfaheenan bal siday u qormayaan waxaynu arki doonaa shibanayaasha akhri oo ku dhawaaq xuruufta shibanayaal far Soomaaligu ay leedahay waana 22 arday 22 ka waxa koow inoo ah oo aynu nidhi xagga hore ku nidhi saddex baynu baranaynaa saddexdaasi maxay kala ahaayeen ba ta ja waa kuwan marka xarafkan oo sideedu qormaysaa marka falaynu eegna arday sidoo xarafkaasi u qormo wuxuu u qormayaa koowdaas halka ka bilaabaysa saynu nidhi hoos baynu u kaxaynay haddaad eegta fallaadhaada waxay ku tusaysaa inaynu xaggaa u kaxaynay oo aynu hoos u jiidnay way mar kale eeg waxaynu u rogaynaa dhinaca midigta inagoo ka bilaabayna halkaa una rogayna dhinaca midigta xaggaasaynu u rogaynaa waynu isla garanay haddana mar kale ayaynu rogaynaa way bal sidaynu isku leekaysiin lahayn aynu eegno kan halkaasaynu ka soo bilownay halkaasaynu keen way kanna waxaynu ka bilaabaynaa halkan xaggaasaynu u rogaynaa eeg marka bartaasaynu ka bilownay xaggaasaynu u rognay xaggaynu u dhaqaaqnay marka bal aynu eegno halka aynu u dhaqaaqnay arday halkaasaynu ka bilownay xaggaasaynu u soo dhaqaaqnay fallaadhayna waxaynu tusaysaa inaynu xaggaa u rognay baleeg mar kale iyana waxayna odhanaysaa sidan halkaasaad mar kale ka bilaabaysaa adoo xaggaa u rogaya way eeg xaggaynu uga bilownay xaggaynu see u rognay xaggaynu u rognay xaggaa halkaasaynu ka bilownay xaggaasaynu u rognay marka
fallaadha yar bayna tusaysaa fallaadhayna maxayna tusaysaa inaanu xaggan u wareegnay hal wareeg kaasi waa baadii balin aynu eegna arday mar kale kan maxaa la odhan jiray ta qoraalka sidaynu u qoraynaa marka qoraalka waxaynu u qoraynaa hal dheer baynu samaynaynaa waa kow laynkaasi halku ka bilaabmay si xagguu u wareegay maleeg marka wuxuu ka bilaabmayaa kor hoosna wuu soconayaa fallaadha yar maxayna tusaysaa inaynu hoos u kaxaynay maleeg waxaynu leenahay mar kale kor baynu iyagana ka wareejinaynaa halkaa saraynu ka wareejinaynaa marka way taas sidaynu iyadana nidhi bal iyadana aynu eegna ardayey iyagana xaggaynu ka wareejinaynaa fallaadha halkaasaynu ka bilaabayna xaggaasaynu kaxaynana fallaadhaasi maxayna tusaysaa in ay xaggaa aynu u kaxaynay barbilowga aynu ka bilownay xaggaana aynu u kaxaynay maleeg tan kale marka waxay leedahay mar kale kani muxuu ahaa ja dhawaaqiisu muxuu ahaa ja bal ja'da halkaa aynu eegno ja'daasi waxay ka bilaabmaysaa barbilow halkaasaynu ka bilaabaynaa xaggaasaynu kaxaynana maxaynu samaynay hal layn oo ah hor socda halka laynee hore u jeeda ayaynu samaynay waa hal xariiq oo hore u jeeda isla markaana waxaynu u rogaynaa xariiq kalenu bartanka ka qabanayna haddaba fiirsa ardayo hoos baynu u kaxaynaynaa waxaynu u wareegaynaa dhinaca bidixda bal haddaynu eegno sidaa aynu u kaxaynay waxaynu leenahay sida tan halkaa maxaynu ka bilownay hal layn xaggaasaynu u kaxaynay marka waa fallaadhaa yar bayna tusaysaa ka kale maxaynu samaynay bartankaynu kaga qabannay hoos baynu u soo jiidnay fallaadhaasina waxayna tusaysaa inaynu xaggaa u wada celinay mar kale halkan waxaynu ardayga ku baranaynay xarfaha ba ta iyo ja qoraalkooduna wuxuu u qormayaa habka aynu arkayno aan ku celiya mar kale waxaynu ka bilownay leenkeenna bartaa waxaynu u kaxaynay hoos halka layn baynoo dhammaystirnay waxaynu u rognay dhinaca midigta fallaadhaas waxayna tusaysaa inaynu xagga midigta u wareegnay xaggaynu u wareegnay xagga midigta isla markaa fallaadhan kale waxayna tusaysaa inaynu bartii aynu ku joojinay kii hore ka soo bilownay oo aynu haddana dhinaca midigta u wareegnay ilaa aynu gaarnay xariijinteennii xagga sare ka timid kaa waxaynu odhanaynaa ardayow ba qoraalkiisuna saa soo qormaya xarafka inoogu xigaa waa ta ay haddaba sideed u qormaysaa balay ku fiirso waxaynu nidhi layn hore u soconayaynu samaysanay waxaynu dhexda kaga qabannay layn hoos u soconaya fallaadhan casi maxayna tusaysaa inuu hoos laynkaasi u soconayo bal kan eeg saddexaad waa jadaasi waxay ka bilaabmaysaa halka laynkaa hore u soconaya laynkaa hore u soconaya marka aynu ka bilownay waxaynu dhexda kaga qabanaynaa haddana layn kale oo sidaa ugu qutama sidana u rogan oo afkiisa dambe uu rogmaya marka maxaynu odhanaynaa layn sidaa u soo rogan oo xaggaa ka rogmaya waa kan fallaadhani waxayna tusaysaa inuu rogmaayo marka oo uu xaggaa ka rogmaayo waaye waxaa inoogu xiga markaa in aynu saddexdan dhawaaqoodii haddana israacino maxaynu kala odhanaynaa ba ta ja saddexdaa dhawaaqoodu waa ba ta ja sidaasay isku raacayaan marka waa ba ta ja halkaa
waxa aynu ka shaqayn doonaa markaa ballayliskii ama weydiimaheennii inoo raacayay casharka faa'iido ayay leedahay. raxmaan raxiim waa aniga oo Ibraahim Jaamac Faarax Dhamca waa macallinkiinii Soomaaliga waa barnaamijkeennii ka baro muuqaal aragga ee akhriska iyo qoraalka farta Soomaaliga waxa aynu soo baranay ardayay xarfaha he ba ta ja waxa inoogu xigi doonaa shibanayaashii baynu ku jirnaaye he xarfaheennan xarafka ha kha iyo da xarafka ha kha iyo da bal saddexdan xaraf iyo qoraalkooda ayaynu ardayay baran doonaa sidee ayay u qormayaan bal aynu aragno markaa kaasaynu ugu horraysiinana siduu u qormayaa sidan halkaasaynu ka bilaabaynaa xaggaasaynu kaxaynana waa kow maxaan sameeyey hal xariiq oo u socda dhinaca waxa aan mar labaad samaynayaa xariiq kale oo ka dul tallaabaya oo u jaraya sidii isku tallaabta xariijintaas ay noo samaysnay xariijintaa kale ayaynu ku dul samaynaynaa waxay noo soo baxayaa markaa baleeg waa sidan halkaasuu ka bilaamayaa halkaasaynu kaxaynana haddaba falaadhahaynu samaynay bal aynu eegno ka aynu dhaqaaqnay waa kee markaa halkaasaynu ka dhaqaaqnay xaggaasaynu kaxaynay waa kow ilaa halkaasaynu gaadhsiinay bal mar kale eg kaasaynu samaynay xaggaasaynu soo kaxaynay ilaa iyagoo halkaa ka soo gaadhayo labadaa fallaadhood baynu samaynay marka koobaad xaggaasaynu ka dhaqaaqnay xaggaasaynu soconnay mar labaadkana xaggaasaynu ka dhaqaaqnay xaggaasaynu soconnay xarafka noocaas aynu dhaqaaqnay waxaynu u bixinaynaa ama aynu odhanaynaa ha maxaynu odhanaynaa ardayey ha xarafkeenna ku xigaa waa kha kha'du waa waxaynu cashirkeenna hore ku soo barannay in ay hayeen halhal laakiin kha'du maxay kaga duwan tahay yaa arkayo ii sheegaya waxay kha'du kaga duwan tahay ha waa sax waxay ka kooban tahay laba halkay kuweenna hore ka koobnaayeen hal laakiin labadana iminka xaraf isku ah xarafkana wuxuu noqonayaa kha bal aynu qoraalkeenna eegno marka sidee baynu ardayga u qoraynaa marka qaabka noocana hal baynu halkaa ka dhaqaaqaynaa hoos baynu u kaxaynaynaa ku kalaynu bartaa ka soo kaxaynaynaa xagganaynu soo kaxaynaynaa maxaa sameeyey imika hal xariijin oo dheer iyo mid aan ku xidhay labada xariijimood xariijin saddexaad oo halkan aan taaganahay aan uga dhaqaaqaya xaggaa baan samaynay marka dhaqaaqa aynu samaynay waa koow laba saddex bal u fiiriso xarafka ku xiga waa kanun waa isaguna sidanuu u qormaya laba layn baan sameeyey oo iskarab ah xaggana ka siman halkaa dhexda ayaan ardayey kaga qabanayaa layn isku xidhaya labadii layn ayaan layn jiifa ku xidhay dabadeedna xarafka wuxuu noqday kha muxuu noqday kha bal eeg intaynu dhaqaaqnay haddaba maxaynu dhaqaaq samaynay haddaba balaynu eegno koow dhaqaaq baynu samayn soo may ahayn halkaasaynu gaadnay kaasi waa maxay waa hal dhaqaaq kanna waa maxay waa dhaqaaqii labaad oo aynu xaggaa u kaxaynay isla dhaqaaq saddexaad baan xaggan u kaxaynay oo isaguna waa dhaqaaqeennii saddexaad saddexdaa dhaqaaq baynu markaa dhaqaaqnay maxaynu dhaqaaqnay
saddex dhaqaaq bal xarafka kale ku lamaan ee khada wada isku yihiin aynu eegno hal layn oo dheer baynu dhaqaaqnay soo maaha haye hal kaloo layn oo dhaqaaqnay oo dheer kaana waynu dhaqaaqnay waa laba layn labada layn baa dhaqaaqnay laynkayga saddexaad xaggeen u dhaqaaqayaa xaggan aanu dhaqaaqay saddexdaa layn baa dhaqaaqay marka kow hoos baanu dhaqaaqay ku kaloo labaadna hoos baanu dhaqaaqay ku saddexaadoo yar ayaan dhexda kaga xidhay xarafka ardayay maxaynu odhanaynaa kha bal xarafkeenna ku xiga aynu eegno marka waay u fiirso xarafkan kow waynu dhaqaaqaynaa kow waynu dhaqaaqaynaa sidaasaynu dhaqaaqnay labana xaggaynu dhaqaaqaynaa xaggaa labana xaggaasaanu dhaqaaqay labada layn baan dhaqaaqay maxaan ku idhi ardayow hal layn baynu dhaqaaqnay layn labaad baan halkaa kaga qabtay waan soo wareejiyey ilaa iyagoo halkaa ka soo gaadhay baa inta aynu dhaqaaqaynu samaynay aynu eegno marka waxaynu odhanaynaa kow hal dhaqaaq oo laynoo dheer ayaynu samaynay oo kan ah laynkaa dheer baynu samaynay ee fallaadha hoos u jeeda waxaan wareejiyey hal wareeg oo halkaa ka bilaabmaya oo sidaa u soo wareegaya oo sidaa u soo wareegaya ilaa iyagoo halkaa ka soo gaadhayo fallaadha labaadna waan dhaqaaqay laba fallaadhood ayaan dhaqaaqay marka oo midixoodan yahay marka fallaadh taagan iyo fallaadha xoodan ayaynu dhaqaaqnay kaana ardayay maxaynu odhanaynaa da maxaynu odhanaynaa da bal aynu xarfaheenna oo dhanba dub ugu noqonno innaga oo xaraf xaraf ugu dhawaaqayna kan maxaa la odhanayaa xa maxaa la odhanayaa xa kanna maxaa la odhanayaa kha xaguu ka soo baxayaa kha waay kanna maxaa la odhanayaa da maxaynu odhanaynaa da wareegyada aynu wareegnay bal aynu ku noqonno kaa koowaad maxaynu dhaqaaqnay halkaa xariijin ka labaadna maxaynu dhaqaaqnay halkaa xariijin labadaa xariijimoodee isku dul samaysan waxaynu odhanaynaa ardayay maxay xa kan maxaynu dhaqaaqnay halkaa laynee dheer dabadeedna layn baan bartaa ka soo dhaqaajiyan ku soo xidhay ku kalena waan ka sii halkii baan ka sii qaaday anigoo xaggaa u kaxeeyey ka saddexaad oo ku xidhan halkaasaan ka soo dhaqaajiyey halkaasaan keenay ku kale oo ayaan ku garab sameeyey labadiiban layn dhexda iskaga xidhay kaana maxaynu odhanaynaa kha keenna u dambeeya hal laynoo dheer baynu samaynay laynkaana waynu ku soo wareejinay dabeedna halkaasaan afka u saarnay kaana ardayda maxaynu odhanaynaa da maxaynu odhanaynaa da waxaynu u baahannahay hal arday oo ku dhawaaqa xuruufta waa sax maxaa tidhi kani waa xa kanna waa kha kanna waa da waa sax sida uu ardaygaasi ugu dhawaaqay xarfaha shibanayaasha ee xa kha iyo da waxa aynu halkaa ku barannay saddexdaa xaraf ee kala ah xa kha iyo da bal iminka waxaynu ka shaqayn doonaa iyaga oo weydiime ah ama laylisa ah waxaynu eegaynaa kuwan waay
layli qor oo ku celceli waxa aad ku celcelinaysaa oo aad qoraysaa weydiimahaagan arday kasta waxa uu kaga shaqaynayaa buuggiisa layliska buuggaaga aad ku qorayso ee layliska ayaad arday walba kaga shaqaynaysaa arday waxaan malaynayaa inuu arday waliba isku dayay kana shaqeeyey oo uu kaga shaqeeyey buuggiisa weydiimaha bal keli baad uga shaqayseen imikana ardayga waxaynu uga shaqayn doonaa si wadar ah oo idinka iyo aniga ayaa ka wada shaqaynayna bal aynu eegno sidaynu uga wada shaqayno waa kan laynkaasaynu halkaa ka dhaqaajinaynaa halkaynu geynina halkaasaynu ka dhaqaajinay halkaasaynu geyn ila soco ardayo haddana halkaasaynu ka soo dhaqaajinay halkaasaynu geyn bal kanna u fiirso halkaasaynu ka dhaqaajinay halkaasaynu geyn halkaasaynu ka soo dhaqaajinay halkaasaynu geyn waay bal kan kale eeg ardayo halkaasaynu ka dhaqaajinay halkaasaynu geynay kanna halkaasaynu ka dhaqaajinay halkaasaynu geyn dhibcaheeni waan isku wada dardarnay marka balkan eeg halkanaynu ka dhaqaajinay halkanaynu geynay kanna halkanaynu geynay waaye kanna halkanaynu ka dhaqaajinay halkanaynu geynay kanna halkaa ka soo dhaqaaji halkaa keen kanna halkaa ka dhaqaaji halkaa gee kanna halkaa ka soo dhaqaaji halkaa keen waaye kaana halkaasaynu ka dhaqaajinay halkaasaynu geynay kanna halkanaynu ka dhaqaajinay halkanaynu geynay dhammaan ardayow saasaad iskugu wada xidhayso sidaad arkayso ayaad dhammaantood iskugu wada xidhaysa kuwa maxaynu odhanaynaa ardayay hee xa balkan eeg marka halkaa ka dhaqaaji halkaagee halkaa ka soo dhaqaaji halkaa keen halkaa ka dhaqaaji halkaagee kanna halkan ka dhaqaaji halkan keen halkaana ka dhaqaaji halkaagee dhaxdana iskaga xidh kan eeg bartaa ka dhaqaaji halkaagee kanna ka dhaqaaji halkan keen waaye halkaa ka dhaqaaji halkaagee kana halkaa ka soo dhaqaaji halkaa keen halkaana iskaga xidh balkan eeg u fiirso dhammaantood dhaxaad iska wada xidhaysa waa sidaa way isku wada xigayaan xarfahaasoo dhamiba mid waliba halkaasuu ka soo dhaqaaqaya halkaana uu gaadhay bal kan u fiirso kani waa maxay waa da kani waa maxay waa da halkaasaad ka bilaabaysa halkaasaad ka rogaysaa halkaa ka soo rog halkaa keen eg kana halkaa ka bilow halkaa gee halkaa ka soo rog haddana halkan keen eg kana halkan ka bilow halkan gee halkaa ka soo rog bartaa keen kana halkan halkan halkaa halkaa haye halkan halkan halkaa wakaa eg wakaa waad ila socotaa balmanaya arday walooba xagga aynu ka wareejinayno arday waliba ula socdaa halkan halkaa halkaa haye 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 heg haye waa ku kaa xarfeenani waxay noqonayaan xa kha da waa barnaamijkeennii ka baro muuqaal aragga ee akhriska iyo qoraalka farta soomaaliga waa aniga oo ibraahim jaamac faarax dhamaca waxaan idin leeyahay inta aynu ku kulmi doona xiisad lamida wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alla waaryaadha waar bal ninkii samatareega ojkadii u dhex fadhiya
إلهي بلن ودري بقدر سارية الدون كنكي ديمان وايا دارار نول بوحياب له أيو دايها سارية سماترو ديمتي ديمتي ديك حمانا كراعدي haweenka dhaqankaalo iyaga u dhadhaare dherigiina ma fuushay magacaa dhimay magaaloy dhimatay dad maxaa ku dhex qaaday maxaa dhoombir ku nool dhabandaad iyo tuug intuu dunyadii dhaafay geeli uu dhaqanayiyo intuu dhaankii ilaabay dharun soo gashanayo isagoo aan dhantaal isu haysan dhamays war haddii aan dherigayga u dhadhaartay carruurta wixii aan dhiba sheeg warwal abuurta oo weliba wuu isla saxayo bal maxaan dhimay sheeg buu ku leeyahay dhaqankii ragga maahoo sharaftaa dhimanaysa dhadhaar fowqal dhadhaar dherig fowqal dabool bal wuxuu ku hadlayee oo waxaan ku sahaladoodii haddaa kuugtu dhammaan dherigay kariyaan cuntadana way dhigdhigaane disease of the disease ma dheri fooqal dabool ma oo anigu miyaan kuwa ka hadlay adigaagan dhadhaaree dherigii dul fadhiyaan ka hadlay waxaan ku idhi horta dheri maan karinayni qudradan aan dhambalayena daaraddeedin dhexdeeda iyo dhirtaasay ka baxday ee badhankaasi jaleec yaa allah haa oo kaalay ma beer baa mise waa guri ma beer iyo guri labadaba way isugu jiraan yaa oo samatar yaa la hadlaaya oo nin hadal waaweyn baaba la hadlayo qaylo dheere haa oo maxaa idin helay oo waaba doodiye wax kale lama helin cawo waxa weeyaan qudradii aan dhambalayay daaraddeena dhexdeeda iyo dhirtaasuu ka baxday ayuu igu haystayo uu ilahaa dhaqankii ma aha ragga haa doodiyow aan kuu warramo annagu horta gurigayagan iyo dayrkayagan waad arkaysaa qudraddii cagaarnayd ayaa nooga baxda intii faytamiinka lahayd way ku taallaa weliba wixii naga saayid noqdaa hadda la soco waannu iibinaa suuqaannu geynaa waxay naga dabooshaa waxyaalo kale oonu u baahnay waar yaa samatar waar waxaan ku idhi oo goormaad cilmigan iyo oo waxaanoo farsamo ah aad isdhex dhigteen waxaase dadkoo la socodsiin weyday waa si wanaagsane horta xanuunintu way socotaa iyo wacyigelin jira waa si ciddii qaadatana ta labaad waxaan ku idhi kaagaasoo kale oo bulshada ku jirana waa dee xagarkii baaba ku go'an dee anigu miyaan u bartay anigu qudrad suuq laga soo iibsada mooye miyaan waxaanoo kale mid aqalka laga dhex beerayo dee marnhow sariirta hoosteedana maqaar baa malaa daydii ka beeran waxaan ku idhi aniga cawo waanu fikirnaa aniga cawo halkay ka baxday baa laga beeraya kusoo dhawow barnaamijkeennii ku baro akhriska iyo qoraalka nidaamka muuqaal aragga barnaamijkani waxaa loogu talagalay dadkaan waxna qorin waxna akhriin inay ku bartaan akhriska iyo qoraalka afka Soomaaliga iyo waliba xisaabta iyagoo ku sugan guryahooda iyo goobahooda shaqo. barnaamijkani waxaa si wada jira u soo diyaariyay hay'adda waxbarashada Afrika ee lagu magacaabo Africa Educational Trust oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada midowga Yurub iyo hay'adaha kale ee ay wada shaqaynta leeyihiin.